fanka waxaan ku soo biiray 2010kii taariikhda milaadiga European calendarka loo yaqaano. markii ugu horeysay maxaad samaysay? dhaantadii ugu horeysay aan sameeyay waxa la oran jiray dhaantada daruur oo xilligii degmooyinkii cusbaaya dhowr iyo 10 ay u horeeyay halkan deegaanka laga sameeyay dib u xorashaduna ay waaga bilaabmaysi. dhulka dooga badan aynu soo daawano aan dalxiisne daruur kaalay wada degne. maxaa kugu dhaliyay fanka inaad soo gashid? runtii horta anigu waxaan ahaa dadka halabuurka ku dhashay, halabuurkaygu jiray un baan kalifay inaan fanka soo galo maadaama aan wax ahaa iskuna ogaa inaan wax urin karo taa awgeed ayaan fanka u soo galay runtii. dhaantada qayb suugaanta kamida weeye noocyo kala duwan bay leedahay, sharaxaad kooban ma naga siin kartaa? dhaantadu runtii waxay ka mid tahay dhaqanka Soomaalida waliba lafdhabartiisa weeyaan. waa marka ciyaar dhaqameedka la sameeyo ciyaarta kaliya marka iyada oo aan muusig wadanin oo farshaxan kala wadanin sideedii caadiga ahayd loo tumayo cid walba soo jeedata weeyaan. way ballaaran tahay runtii iyada oo marka si guud loo wada eego jaanteedu ay isu eg tahay haddana qaab ciyaareedkeedu waa kala duwan yahay, codadkeedu wuu kala duwan yahay. sida ay u kala duwan yihiin teembooyinka afka qalaad loo yidhaahdo reege, saambo, kraatris iyaduna waxa weeyaan waxay leedahay rigo, ruquusho, garbaroga, guuxo, berberey waxyaabo fara badan noocaas ay u kala baxdaa. runtii waa ciyaarta kaliya la oran karo ciyaar dhaqameedka Soomaalida way ugu qanisan tahay weeye. samaynta dhaantada casriga ah timiga markii laga soo tago iyo heesta markii la samaynayo maxay ku kala duwan yihiin? horta runtii labaduba waa uun suugaan waxaana curinaya uun halabuur. waxaa kala duwan uun waa dhaqankii oo waxa laga sameeyaa erey dhaqameed midna waa de suugaanta casriga ah oo iyadana runtii waxa weeye isku soo baa dareenka baa kala duwanaan kara laakiin iyaga oo u qaybsan ciyaar dhaqameed iyo fanki casriga ah caadiga ah oo heesihiya waa isku mid wax saas farqo saas u dhaxay ma jira xagga curinta. dhaantooyinkaaga dhaantadee ugu jeceshahay? kolbataan marka masraxa ka qaadayo waliba ay jiraan dhaantooyin caan baxay oo iyagu ay bulshadu jecelyeen anigu waan sameeyaa laakiin bulshada kala doorato oo kala jecel kolbata ugu saameyn badan in baan aniga ila qaalisan. hal dhaanto oo leedahay way ugu saameyn badnayd sanadihii la soo dhaafay baqaqacnoogasi nogob weyno naqhelaya ku noolaada oo geela naxnaxaya ku duduwaan iriga. dhaantaas ugu saameyn badnayd sanadihii aan soo dhaafnay runtii. dhaantooyinka aad qadid axmedow mararka qaarkood ma loo qaataa inay yihiin kuwa siyaasad loo kuleh? dadka qaarkood way la jiidhaa wadad siyaasadeed kuwa degan dhaanta jacayl oo iska jiidhaa jirta iyagu u turjintaan xaaladda marka ay ku sugan yihiin siyaasadeed. laakiin aniga marka horeysan samaynaya rabitaankayga wax siyaasad ay ku lug leeyihiin ma jirto. laakiin waa laga yaabaa sugaan ahaan wixii aad samaysaa xaalad markaa jirta inay ku fadhiisato. dhaantadaadii ugu dambaysay ee is leedahay saameyn bay yeelatay waatay haddaad xasuusatid? dhaantada gaal iyo islaamba ka qayliya ugu dambaysay waxay noqotay dhaantadii sool runtii. halyeeyadii daraawiishe lagu hirtiyo hooyadii geesiyaday badale dhashay halgamacaanahiyo sooley hedha sooley sooley hedha sooley hal abuhur gabyaba waa lagahaga hadhay. dhaantaas runtii ugu saameyn badnayd dhaantooyinkii u dambeeyey marka aan sameeyey. abaan axmed budul dhaanta gooni adiga oo dareen aad ka samaysay jacayl may jirtaa? haa way jirtaa runtii. ninku markuu halabuur yahay inta ugu badan suugaanta waxaa laga yaabaa inay naftiisa la xidhiidho marka laga tago waxyaabo kale oo uu bulshada ku matelayo. marka waxaa jirta dhaanta la yidhaahdo dhiig joojin. yartu waa dhaawaco dhulka kama kacde ana dhiig joojiniyo hirbadyaa iga dhiga dhadhan malaha nolol ay ka dhiman tahay yarta dhinaca iyo dheegayaa igu xidha. dhaantada weyn runtii. waayahay gabadha aad u samaysay waa xaasaskaaga miya? horta haddaynu idaacadaha wada farfarayno waxyaaba badan baa ka soo baxaya. runtii calafiskumanaa yeelanin xaaladda noocaasee jacayle calaacalkee runtii aan ka dhawaajiyey waxay ahayd wax ka baxsan imika xaasaska dee jooga ee igu cindan way ka baxsanayd runtii. dee sideeduna ismaaciilow dumar badan baa igu cindan dumarkaa badan intaanu aniga ilaahay isla ognahay mooye dee inta kale adiguba waad garanaysaa runtii.